tobaneeyo barakacayaal ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxa ay soo gaarayeen gudaha magaalada Baydhabo kuwaasoo isugu jira kuwa ka soo barakacay degmooyin iyo tuulooyin hoos yimaada degmada Baydhabo oo ay saameysay roob yaradii dhacday labadii fasal ee ugu dambeysay oo ay beerahooda ka helin wax dalag ah iyo kuwa ka soo guuray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo ay uga soo carareen nabadgelyo darro keentay in lagu laayo dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Barakacayaashan cusub ayaa ku soo kordhay gudaha magaalada Baydhabo kuwaasoo dul degay kaamamka ku yaala dhanka koonfureed ee magaalada Baydhabo halkaasoo ay barakacayaashii horey u deganaa aysan muddo ku dhowaad sanad ku helin wax gargaar ah oo iyagaba noloshoodii ahayd marquudo. Waxay fadhiyaan dadka meelo bannaan oo ma haystaan hooy, hunguri iyo biyo. Waxay korsaar ku yihiin barakacayaal kaliya waxay ku dhaamaan ay yihiin balbalooyinka maryaha iyo bacaha la isku dabay ka samaysan ee iyaga iyo carruurtooda ay ka hoosgalayaan qorraxda maalintii iyo dhaxanta habeenkii. sidaas oo ay tahay haddana wixii ay dabka saartaan ayaa u ah jidinka ay wada mariyaan oo haddii la helo ay ka badnayn halka waqtiga maalintii. kuwani waa qaar ka mid ah horjoogayaasha kaamamka ku yaala dhinaca koonfureed ee magaalada Baydhabo kuwaasoo ay soo duldegeen barakacayaasha cusub. waxa ay uga waramayaan warbaahinta dalsan culayska ku soo kordhay kaamamkooda ay horjoogayaasha ka yihiin iyagoo marqaba cabasho ku aadan sida maamulka degmada ay u maamulaan kaamamka barakacayaasha ee ku yaala cirifyada koonfureed iyo kuwa waqooyi ee magaalada Baydhabo taasoo ay sheegeen in aysan daacad ka ahayn isla markaana aysan u sinnayn. marna waxay baaq u dirayaan hay'adaha samafalka UN iyo hay'adaha caalamiga ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxdeeda ugu horeeya madaxweynaheeda Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo kuwa dowladda dhexe hanaantu amni hay'ado saad koran anta oo basharo hajab horal siin kula degan hay'adi saad korta insaataytun hayno dhaafay mid badan nasin shaage maamulka arday waliba oo degmada mayba lana nadulm yahay waa ilaahay barisan nadulm yahay emaan ma ay la seenay dadka maamulka ee leh hay'ado yahay ma fadan usino ardayda no mural ibiyahay makanool dad harar tu hireerkaadi oo dad makanool Baydhabo ardayda waliba koonfurtiye heeg oo basharo suuqdoola walaay suuqdoola dhaqaale geelu qaadawna nabada madii ardayda baasal qaadawna Baydhabo oo dhaqaalaha suuqdoola qaatan fadaasan nabada madii kaamlayta lingargaarawna hireerkaadi oo hanaan tuulay nabadaha taas ilaahay ardayda seenkaleey saabtamo doon nadulmi haytan walaag ilaahay sheen dadkaas iskoola qaban soo lara anti eldon arday waliba kusurun maamulka degmada ertisa kuluto ay arlaadun batwaan degmada la sheegadahay shansaniyada maamul arday waliba degmadun ka dhisanya may basan lena dadka armaha gudaha naga toy maamulka gobolka naga toy madaxweynaha naga toy dadka armoogunka shughul leh may basan sheegana degmadi Baydhabo ardayda hoob Baydhabo dhinugun anshuureen kooyso dadka masaakin ab anfeeriyana man qobato lana todobaatusni suuba kulli hadalada wal ku biidoon ha ka daradoon hadii ilaahay saas aawadi may fadana in degmadan dadka ka dhibaataysan horta joljimaa dadka iskoolada la dhisay dadkoona caafimaad koolan dhisay eeladii qodanyin walaajo dhoon iskor saaryin raashin wal soo ay baasigaadaha arlaadu dadka samafalka iyo dadka maamulka horta ma ku warqabaan dhibaatadaas aawadi in hanin ku gurmado la kooyo may fadana horta dhibka kaamamku ku jara la arag area ahaan oo sharo ahaan baan sheegahay gaar ahaan kaamkana tika noolan shabeelo baayla rantun dadada tijirin uu shaanti boose jartaki magaalada galanya boos ku ay ka jara onaga madii tubada ku gili dabada ku saarada saasoo kan hatu la santu soo ay waa ku jara dagaalka waayelada sagaalun jarka jirin dabada ka darahaan anta bagun hoostay tangato hoostay fideeda ba ku mida may fadana horta gurmada in helna siddeegan helna dhibaatada garlaan haysa torto walna nool gobol gudoomiyaha kaamka tawhiid ah oo nabadi fiican jarta dad ha ku baraka ay hoobishoolo dhul badan ha ku baraka ay roog wala nan haayona male hiyatan boogo tilangnin kooyna male baahi lahaay wal baahnyo oo ngayaale bi male wal yo leeying male amadun ayada samafalka adduunka may ku odsadana ini wal al waliyo tabarti oo yo bahayaan ilaahay haneen ku qaadana ninshaan iyo odsadaan dadkaas dhibaataysan ay kordhigi
dhibkaas ay hay dadka inkastoo ay yihiin isma dhaanta duruufta ay wada dabartay kasoo tegay deegaanadoodii barta iyo beerta ay ku lahaayeen col iyo abaaro saameeyey ayaa haddana waxaa ku jira haween bugto ay u dheer tahay oo raggoodii ay dhinteen ubadkooduna uu asiibay xanuun aad u daran oo isbitaalada dalka gudihiisa xitaa kabin in ay iska bixiyaan kharashka daawada sida haweeneydan canugeeda xanuunsan taasoo bulshada Soomaaliyeed codsigan u dirtay oo aragda inuu operation intuu ka xiriirsan madaxa biyo jaro haysada beertayaalka ay qanoolada qadaan aragda inuu gaastarsiisan gadi wala aan haysada malay oo bilaa riyaalka aragda muddo wala halaan muddo baahda aragda mashaqaysada kor muhiimaalada kor walaan oo aragda ka jarto bogay ka xiriirsan muhiimaalada kor ku shaqaysada kor laana hanta gargaar aan hata ku hayso ilaahay dartiisana ku haysada malay oo ilaahay araw arinay wal barasho ma haysadaan biyo ma haystaan la hata aan aawe ahaan ana ka haysada malay إن شاء الله تعالى ولا ليالا ويبقى فلان إني أرقد إني لتعالى أو أرقد إني لحريرة أو أرقد إني نناولي أولادني ونناولي لا يدرتيس إني ناولي شنك أنا قرقار حانتي ورتو إنكم إني أنا ليلة قوضوا لي عاو يوم باهنا أرقد تبردورد أني حايستي إلهي درتيس ليلة قوضوا لي عاو يوم باهنا فمادي هتا تام تكفي راكنا فضاي بريش أنا كنا وايسنا هو بلا روي بفضاي إنكم degmada Baydhabo way bafada in ana leelaayo way leeleel qowdan baahan insha Allah bilaahi waayeelo haween ah iyo caruuro yaryar ayay u badan yihiin barakacayaasha kuwii hore kaamamka ugu jiray iyo kuwa cusub ee iminka soo gaaray waxayna u baahan yihiin gurmad degdeg ah balse sida muuqata ma jiraan wax dhaqdhaqaaq ah oo dhaqsi wax loogu qabanayo barakacayaasha oo ay wadaan hay'adaha gargaarka iyo maamulka koonfur galbeed balse gudoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Dooyo ayaa booqday kaamamkaasi si uu indhihiisa ugu soo arko isla markaana u qiimeeyo xaaladda kadibna waxa uu gurigiisa kula hadlay warbaahinta isagoona diray baaqan qayla dhaanta uu doonayo in loogu gurmado dadkan harooyinka okiyaal suuq hoola indhinigaasi marka dadka oo isin argaasan oo barakayaalka may boo dadka baraka ay beero abaar sideen ku hay beledkii diniyaashii ee degmada Baydhabo iyo degmada qasadheer degmada Berdaal maadaama beero sinadkun ka banna may dheeraayso beerogi abuurkii ambana roobkan yaray may ba argahay tan in dad usub oo barakay ka ziyaadan kaamunka hor anjar dadkii hor anjaray oo naftiyo bambaanay in oo inta la kaalmay oo isku liidii hadana dad usub oo atada usub oo barakayaal ee ka darmeen marka may codsadaan hay'adaha internationalka local NGOs dhamaantiyo inta walka tarakorto walsi korto in oo inta kaalmo weydiyaan dinuwelba kaalmooyinka hor aan dhibayn NGO-yada iyo international NGOs ki kullin aan mahadnagaan haddana dimay codsadaan in oo inta la kordhiyo dadaalka dar si dadkaasi la badbaadiyo dhibaatada wajahday laakiin may ku rajeeyeen in oo inta roob insha Allah dareero oo meydray beero si dadku beero soo kan nagada beerogi oo walka badan iyo amaan la wal badan iska darmi igoo haddana iyaalkii iyo kala dhignya meydray iyaalkii gudo iyo hoolay oo anshuurta ka badiyay dhibaato ku qoyti dhinaga shabaab marka saas daraadii may waa qax cusub oo intoy yaa nagda marka kulli dhamaantii intii khuseyd oo arrimo oo intoy barakayaasha may codsadaan in oo intoy kuwii horoo dabkoodii dansan yahay ayaa kuwa hor leh duldayeen iyadoo aysan jirin tabar isdhaanta ay wax isugu tari karaan dhibta way ka siman yihiin baahidooduna waa mid jawaab ficil ah u baahan muddo badan la qaadan karin taasoo haddii lala daaho durba abuuri karta xaalad bani'aadannimo oo galaafan karta nolosha dad hadda nool iyo xaalad bani'aadannimo oo daran mukhtaar sheekh aadan dalmar bishinkay raadiyaha dalsan برشويني بيداو جناي